gaalkacyo muddo dheer waxay la nooleed colaado kala qaybsanaan iyo cabsi joogto ah magaalo laba dhinac u kala jaban dagaalna mar walba u dhow laakiin maanta gaalkacyo waa astaanta nabadda iyo wada noolaanshaha waa maxay sirtu gaalkacyo waxay ahayd colaad baa ka jidhay muddo dhowr sano shantii sano ugu dambeysay waxay ahayd waddan nabadeed ayay ku tillaabsatay waa waxa ilaahay looga mahadiyo nafti hornimaa la sameeyey waxaa la gaaray barnaamijyada in la isku daro waxaa la gaaray aroosyada in meelaha lagu soo dhigto waxaa la gaaray in muxuu ahaayey dadka isku soo dhawaado markaan go'aansaday inaan booqdo magaalada gaalkacyo waxaan arkay wax ka duwan waxa warbaahinta soo bandhigtay waxaan idinkaga diyaariyey dokumentarigan kaasoo xambaarsan marakaca dhibka soo maray magaalada gaalkacyo iyo sida ay hadda nabadeedu tahay dhamaysa muuqaalkan oo si qoto dheer u iftiiminaya nolosha cusub ee gaalkacyo gaalkacyo waa magaalo leh taariikh dheer xanuun iyo rajo wada socdaan waa meel ay ku kulmaan laba maamul goboleed laba nolol iyo hal rajo taas oo ah in dadku ay ku wada noolaadaan nabad magacaygu waa Geedisaan waxaan ahay YouTuber muddo dheer warbaahinta ka maqal jiray inay magaalada gaalkacyo ku tilmaamaan magaalo aan nabad ahayn hase yeeshee markaan go'aansaday inaan booqdo magaalada gaalkacyo waxaan arkay wax ka duwan waxa warbaahinta soo bandhigtay waxaan arkay hal magaalo weyn oo leh laba maamul goboleed laba suuq laba garoon iyo laba stadium hase yeeshee waxay ku midaysan yihiin nabadda magaalada gaalkacyo gaalkacyo waxay bartay inaan rumaysan wax walba warbaahinta la soo dhigo tani waa gaalkacyo waa sida aniga u arkay tobankii sano oo ugu dambeysay oo nabadda ahayd kobaca iyo koriinada ay samaysay hadday ahaan lahayd nabaddaas hadday heli lahayd sanooyinkii ka horreeyey saaka waxay ahaan lahayd magaalada Soomaaliya ugu weyn marka runtii saaka la isweydiin maayo nabaddii maxaa lagu gaaray waa wada ognahay waxa lagu gaaray bulshadii colaadii waa ilowday haddii ilaahay ku maayo isdhexgal iyo nolol baa laga helay ganacsi baa laga helay haddii ilaahay ku maayo waxaa laga helay in qofba meeshuu rabo ka ganacsado qofba meeshuu rabo maro in waxaa laga sii helay dadku inay ku dhiiradaan markay wax meel ka dhacaan inay yiraahdaan war nabad loogu bedela oo dadku ay wax ka samraan dadkoodii oo laayay dadkoodii oo dhintay inay yiraahdaan war nabadda ka qaalisan aan dhaafsanno muddo dheer gaalkacyo waxay astaan u ahayd khilaaf iyo kala qaybsanaan magaalada waxay soo martay waqtiyo adag hub barakac iyo cabsi joogto ah qoysas ayaa kala irdhooway carruurta qaar waxay ku koreen jawi aan ammaan ahayn gaalkacyo waxay ahayd colaad baa ka jidhay muddo dhowr sano shantii sano ugu dambeysay waxay ahayd waddan nabadeed ayay ku tillaabsatay waa waxa ilaahay looga mahadiyo haddaan warbixin in ka siiyo gaalkacyo wixii ka dambeeyey 2000 iyo ilaa 18 wixii ka dambeeyey nabad bay ahayd nabaddaas door weyn waxaa ka qaatay hadday noqoto labada maamul goboleed hadday noqoto culumaadiinka hadday noqoto dhalinyarada isdhexgalka bulshada haweenka ganacsatada intaba loo wada istaagay sida u xasil lahayd ilaahay mahadiis weeye gaalkacyo waxay taagan tahay meel fiican bay hadda maraysaa waa labada maamul mas'uuliyiin hadday noqoto ciidamo hadday noqosho dhammaan waa la wada shaqeeyaa oo waxa ilaahay looga mahdiyo markaan intaas ka soo gudbo waxaan rabaa inaan dadka reer gaalkacyooda ugu baaqo nabaddaas jirta in la xajiyo lagu mitido midka dulmiga wada oo ummadda dhibaataynahaya inaad gacmaha ka qabatiin khayrka iyo wanaagga la isku garabsado mas dhibka hadduu yimaado dhammaan dadka dhan way saabaynahayaan ilaahay wuxuu leeyahay wattaquu fitnatan laa tusiibanna aladiina dalamuu minkum khaasatan wattaquu ilaahay kacda fitnatan fidna
laa tusiibanna aan ku gaar noqonayn aladiina wattaquu fitnatan laa tusiibanna aladiina minkum khaasatan kii sameeyey aan gaar ku noqonin ka dhowrsada fidno midkii aan sameeyey aan gaar ku noqonayn ka dhowrsada waxaan rabaa hadday fidnadu timaado qofka wanaagsan iyo qofka kale kurti wayna asiibaysaa waxaan rabaa inaan idhaahdo fidnada colaada muhlikaad weeye nolosha dadka way baabi'inaysaa waxbarasho iyo diin guud ahaan way baabi'inaysaa diin bay baabi'inaysaa waxbarashadii kaloo nolosha baabi'inaysaa ganacsigii bay baabi'inaysaa waxaan rabaa inaan idhaahdo fidnada ha laga digtoonaado wanaagga ha loo midoobo laakiin gaalkacyo mar walba ma ahayn goob dagaal oo keliya waa magaalo leh ganacsi dhaqan iyo dad adkaysi leh dadkeedu mar walba waxay rabeen nolol ka duwan tii colaadda marxaladda koowaad ee nabadda waxay ka bilaabatay wacyigelin bulsho oday dhaqameed culummo iyo haween ayaa bilaabay wada hadal waxay fahmeen in khasaaraha dagaalku uu ka weyn yahay faa'iidada nabadda mara halkaa ha ku soo xirato ha ku qorto gaalkacyo nabad bay rabta habeenkii oo dhan baa daydkan weyn oo aan idiin sheegayo guriga iyaga oo iska bannaanaa baan soo gallay maryaan ku jeexjeexayna waxaan dhahnay weli waxaa jira muxuu ahaa dad ka soo horjeeda nabadda haddaan qaylinoo dhahno dagaal ma rabno waxaas ma rabno balaayaa nagu soo darsanayso oo dan kale leh yaanan hadlin halkaasaan ku qorana gaalkacyo nabad bay rabtaa waa xasuustaa annagana halkaanaan ka dhaqaaqnay qolada kalena waxay kasoo dhaqaaqeen magaalada geeskeeda waxaan ku kulannay marka hore waa wada muxuu ahaa gadoonay magaalada dhan baan soo marnay kor baan ka soo marnay suuqa xoolahan soo marnay waxaan nimid dugsiga ummadda waa ka khudbadeynay galabtii madax Abdullaahi Yuusuf oo yimid markaas baan dhahnay kaale gabdhihii dabadda keenay maanta oo dagaalka joojiyay u khudbadee waa xasuustaa basaskii aan ku doonay gabdhahaas saan u baqaynay markaan doonaynay nimankii aan baska wateen waxay dhaheen aadameen anagu halkaas waan la dilaya dagaal baa shala dhacay bas waxaan dhahnaa annaga gabdhaha raadinayna waxaa xasuustaa walaashayna gaari wadatay anna gaari baan wata xaajeed labada iyadoo waa israacana dushaan uga soo gurna gabar kaloo gaari iyadana wadatay oo wiil walaalkeedu lahaana dushaan ku soo wada gurnay meeshaan quraca hadda madaxtooyada Puntland baan keenay baa loo khudbeeyay meeshii baa gabdhuhu ugu mahadnaqay wuxuu yiri magaaladan aniga aydiid Allah u naxariistay markii aan anagu tageynay saasa farqaha loo haystay buu yiri dad baa nabadda ka xuma waliba dad baa ka xun ha u joojinina gabdho waa fiican tihiin anaga nimankii saaka noo diiday oo yiri ma mudaharaadi kartaan waa u diidnay in albaabka ka soo galaan waranaga maxaa naga rabtaan madaxweynaha la socona maybaan madaxweyne kaliya baa soo galay iyo wasiir uu watay nimanka gaalkacyo jooga dhinac kastana aadan albaabka ma soo galeen sababtoo ah way naxabadeeyeen subaxii wiilashii dagaalamay hubka wateen waxay dhaheen waa guuleysta gabdhaha iyaga guuleysta calamay noo ruuxeen marka waxa ogaanay in dadka reer gaalkacyo nabad rabaan laakiin dadka dhexda uga jira ay yihiin dad dana gaara wata waxaa sidoo kale bilaabmay heshiisyo maxalli ah xabad joojin kala soo ciidan iyo xeerar bulsho oo lagu ilaaliyo nabadda inkastoo ay jireen caqabado haddana tallaabooyinkaas waxay abuureen kalsooni yar oo soo koraysa dhalinyarada iyo ganacsatada ayaa door weyn ka qaatay nabadda gaalkacyo ganacsiga wuxuu noqday buundo nabadeed suuqa waxbarashada iyo shaqo abuurku waxay bedeleen qoryihii dhalinyaradu meesha gaarka ah runtii ay xoog gelinay ka dhalinyarahan aan ka shaqeyn waxa waaye inaan isdhexgalka bulshada iyo dhisidda kalsoonida bulshada soo celino magaalada gaalkacyo ilaa iyo xilli hore waxay ku soo jiri jirtay dagaal la sokeeye oo meelaha halkan wada dega u dhaxeeyay laakiin heshiis rasmi oo magaalada lagu soo wada degay waxa horeysay 1993 oo Jaraal Maxamed Faarax Aydiin iyo madaxweyne hore Cabdullaahi Yuusuf Axmed ay heshiiskooda gaareen in magaalada gaalkacyo dadkoodii maadaama labadii beelood magaalada ugu badnaa ay ka soo jeedeen heshiiskaas garwadka ka hayeen iyo sidoo kale Dr. Cali Ismaaciil saddexaas nin baa heshiiskaas saxiixday 1993 intaas waxa ka dambeeyay magaalada wadagii ahayd mararka qaarna dagaalada ka dhici jireen laakiin dagaalada ugu culus oo magaalada dhibaatada ugu weyn geystay waxay dhaceen 2015 ilaa 2016
markaasay kacanka dhalinyaradu asaasmay iyo inay bulshadu ka hor timaado dagaalada sokeeye oo dhibka iyo dhaawaca iyo dhimashada iyo khasaaraha badan sanad kasta ku keenaya degmada Gaalkacyo. meel ganacsi uu ka socdo mar colaadii hadday soo kororto ganacsi mar walba hoos u dhacaya markii meesha ay nabad noqotana waxa way bulshadii dadkii iyo waxa way isdhexgal bilaabanaya oo dadkii dib isku soo laabanayaan marka waa ogtahay marka waxa weeye mar haddii uu amniga uu fiicnaado amaankii iyo nabadii ay bilaabato dib u soo noqoto ganacsigan wuxuu noqonayaa hayb noqonayaa meel fiican markaas ganacsi marka aad iyo aad u fiican maanta fariin waxa uu dirayaa in bulshada ay isku soo dhawaato in laga shaqeeyo nabadii in dib isku soo laabto dhalinyar ahaan haddaan anaga kaalin weyn baa ka qaadanaynaa oo haddana ku tali jirnaa marka waxaan leeyahay nabad baa nasl nuuga leh isboortisku wuxuu ka mid yahay waa nabadda sababtoo ah haddii dhalinyarada aan la mashquulin xirfadooda iyo taalantooda ay soo bandhigin oo laga faa'iideysan waxa looga mashquulayaa arrimo kale oo siyaasadeed runtii waxaan u sheegay dhalinyarta gobolka Mudug iyo meel walba Soomaaliya joogaan in dalkooda iyo dadkooda iimaansanaan waxa ay horumarkooda ka shaqeeyaan dalkan dhalinyarada iska leh dhalinyarada waxa loo baahan yahay inay mar walba horumarkooda ka shaqeeyaan isboortisku waa meesha kaliya ee bahwadaad ay ku yihiin nabadda iyo horumarka isboortiska dhalinyaradaba waxa leena isboortis hal oo dadkayo hal la xoojiyo mar walba dhalinyaro la hela oo lagu faa'iideysto aqligooda iyo garashadooda waa mar walba guul u hela gobolka iyo Soomaaliyaba ummadda wasta waa isdhexgal iyo horumar iyo bashbash saas waxaan rajeynaa ciyaaraha isboortiska dhalinyarada la daadahiyo la garab istaago la dhiirigeliyo maanta Gaalkacyo waa magaalo soo kabanaysa nabaddu weli waa mid la ilaaliyo dadku way socdaan caruurtu way ciyaarayaan rajo ayaan cirka ka muuqata sidaas marka anagu nabadayada ku wadanay ka bacdi waxyaabo yaryar baa dhacay marba marka dambe waa ka soo qabobaanay labadii dagaal ugu dambeysay oo la oran jiray billaha iyo la dhihi jiray waxay bilaabeen markii maamulada yimaadeen khilaaf maamul buu ku yimid siyaasad buu ku yimid siyaasadii markuu ku yimid waxay noqotay caaw anagoo nabad ku seexanay baa waxa isdirarahaya oo siyaasad ahaan soo kala jeesanaya ninka galgaduud jooga iyo ninka garowe jooga madaxweynayaasha ama maamulada ah waxa la leeyahay hubkiina qaarsada diyaarsada reehebel siyaasadii waa jabtay nabadii waa jabtay subaxii marka waxa weeyaan hub shidaal qaylada hoonka baa la yaabi jiray dagaaladaas marka waxay noqdeen markii dambe waxaa la ogaaday ganacsatada shalmarkii shirka aan ka sheekeynayna ganacsatada iyada danaysanaysa adiga ku danayn mayso way saaxiibeen laba hadaysan jecleen xataa way saaxiibeen luuqyadoo dhan bay xirxirteen waxay dhahan anaga looma soo gali karo marka anaga naf bay noo noqotay markay magaalada santarkeedii waay qoladaas ganacsatada ma soo jiiri karto qoladaana ma jiiri karto dagaalku wuxuu noqday in xabada la isku rido iyo in magaalada koonayaasheeda la tago anuu bishaas dagaalka halabeen kama dhixinin magaalada kama bixinin kamana qaxinin gabdhihii qaxay dadkii qaxay qaar baa caruurta masas ka cuneen naagaa banaanka ku soo dhalay ilmihii jaamacadda dhiganayo dhan baa laga qaaday waxa imaan jiray sidii filimada shalay aan ku daawanaynay gaala ajnabigii waxa imaan jiray heer waxay gaareen si kala fogeeyaan waxay dhan qolada ka imaanaysa dhinacaas waxa ka soo martaan dhinacaas soo mara idinkuna waxa soo martaan argaduudan aeroboorka marka la isugu imaanayo waxa lagu kala xiraa askar basas saf loo gashaa waxa la idinkuna xagga jooga sidii inay dadku is cunayaan oo kale magaalada Gaalkacyo waa tusaale muujinaya in nabaddu aysan ahayn hal maalin balse ay tahay safar dheer safar ay hogaaminayaan dadkeeda dulqaad iyo rabitaan nolol wada jir ah